waxaan soo dhaweynaynaa dhalinyarada ka timi gobolka Sool ee dariska nahay marka labaad anoo ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliya waan soo dhaweynaynaa dhalinyaro badan oo reer Ceergaabaay ama reer Sanaagi su'aalo badan bay isweydiin jireen oo Soomaaliya ku saabsan su'aalaha qaar kood waxaan maleeyahay maanta laga jawaabay qaar koodna waa looga jawaabi doonaa waxaan kaloo aan si kooban uga hadlayaa dhalinyarada reer Sanaag aad waxay horta uga xun yihiin khilaafaadkan iyo colaadahan soo kordhaya maalinta ka dambaysa gobolkeena ku soo kordhaya aad bay uga xun yihiin sababtoo ah waxa weeye dhalinyarada reer Sanaag iyaga ugu badan kuwa colaadahan dhacaya iyo dagaaladan ku waxyeeloobaya mid ku dhinta mid ku dhaawacma mid ku aqoon beela iyo mid ku ehel beelaba marka xagga laga yimaado Soomaaliya waxay qayb libaax ka qaadatay in doorashadii golaha deegaanka lagu dooranayay in dhalinyarada soo gasho waa talaabooyinka koowaad ay noo qaadeen iminkana waxaad moodaa doorashadii dhalinyaradu inaan cid basharaxnayn anigu waxaan moodayay markii hore in dhalinyaro badan oo ama reer Sanaaga ama reer Soola ama gobolada kala jooga deena musharaxiin yihiin laakiin sida muuqata markii golihii aynu ogeyn wixii aynu ogeyn sameeyay dhalinyaradu inay ka dhidhiina bay ahayd oo inuu ka xanaaqno oo ka qaylino haddaynu sharaxayno laakiin waxa halka malaha ka muuqatay weynaan doonayn inaynu sharaxno taasaa keentay in golihii iskaga noqnoqdo oo maalin walba ay 5 sano 2 sano ay iskaga cishadaan shakhsiyan waxaan kula talinayaa dhalinyarada cidii han kale ee doonaysa inay sharaxda diiwaynana wax ka qabanaa oo inuu ka dhiidinaa oo inuu wardaad waqtigiina uu dhamaaday booska markayga weeye noo baneeya taas waa mid Soomaaliya mid man farayaa waxaan leeyahay reer Sanaag iyo reer Sool iyo gobolada oo dhami wax badan bay tabayaan haday ka tabi lahaayeen xagga dawladda haday ka tabayaan xagga hay'adaha waliba haddaanu reer Sanaag nahay hay'adaha aad baan uga cabanaynaa waxa weeye hay'aduhu ma soo gaaraan ma wadada rafka bay diidayaan ma waxa weeye waxa lagu yiri xagga mashaariic waxbarasho shaqaan ka jirin Soomaaliya marka waxaan leenahay fariin naga sii qaado hay'adaha la kulmaysa waxa tiraahdaa reer Sanaag waydi tabayeen taana waan leenahay haday haalayd xaq wax qabad iyo haday haalayd xaq shaqo maadaama maanta anaga martina loo yahay Soomaaliya iyo reer Soolba ay martina yihiin hadalka taagtaagi meeyne aad u badin mayno waxaan kala jecelahay inaan ku soo koobo anoo ku hadlayo maadaama xisbigayga mucaaradka uu meesha ka maqan yahay kelmadda xisbiga mucaaradkana mana ana leh rajada shacabka aan idin sheegayaa wax xisbiga wadani insha Allah dhawaan shaqo badan baynu qaban doonaa waa aragtana wadankeena waa la qafilay marka hore waxaan dareemay iminkana qafil baa loo raaciyay saynu isaga jimin lahayn dhalinyaradeena aan halka maxaa ahaye aan guntaga u xidhanno waan ka yar raali gelinayaa Soomaaliya maaha urur ama hay'ad siyaasad shaqo ku leh laakiin qoladeeda mucaaradku haddaanan halka taaban miyirkaan ugu soo noqonay raali ahaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.